inkastoo ay jiraan muwaadiniin badan oo bilaa camal oo shaqo raadisa ayaa haddana marar badan waxaa dhacda in shaqaale kale oo ajaaniba wadanka dibadiisa laga keeno halka qaar kalena ay si sharci darro ah kusoo galaan kagana dhex shaqaystaan Somaliland iyadoo taa beddelkeedana muwaadiniin badan oo bilaa shaqo ahi Somaliland ka doorbidayaan tahriib iyo safrida wadamo kale oo ay fursado shaqo ka raadsadaan dhinac kasta markaad ka eegto tan waa mid dhibaato iyo dhaawac ku ah qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. markaan aragnay baahida loo qabo in la sameeyo xirfad goob lagu barto oo inay fursadaas ay ka banaan tahay isla markaana dadka ay u baahan yihiin waxaan sameynay assessment ku saabsan bal in opportunity-gaas laga faa'iideysan karo isla markaana la heli karo dad beneficiaries oo wixii ka faa'iideysta marka 2014 baan assessment ka sameynay marka ilaa 2014 waxaan ku jirnay center preparation-ki si goobtii loo heli lahaa sidii maaragtay aanu infrastructure-ki class-yadii iyo wixii loo sameyn lahaa marka 2015 ayuu asal ahaan bilaabmay xarunta lagu barto xirfadaha oo loo yaqaano Ufenco Technical and Vocational Institute marka dadkii waxa weeyaan suuqa joogay waayay meel kale inay ka shaqeeyaan waxaan siinay fursada wax barashada xirfadiya marka qof waliba xirfada uu ku habboonay uu isla hawad heli karaysa xirfadaha intii aanu ilaa 357 qof ka faa'iideystay halkan waa maxadka tababarada xirfadaha ee Ufenco halkaas oo ay ardaydu ku baranayaan xirfado kala duwan filimkan kooban waxaan ku eegi doonaa horumarkii laga sameeyay mashruuca shaqo abuurka ee horumarinta cilmiga laba mashruucaas oo laga hirgeliyay magaalada Berbera mashruucan oo iska kaashanayaan hay'adda caalamiga ah ee Save the Children iyo ururka dhalinyarada ee Ufenco ee xaruntiisa tahay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. mashruucan waxaa la yiraahdaa horumarinta cilmiga laba gobolka Saaxil banaanu ka shaqeynaa hadaan nahay hay'adda wadaniga ee Ufenco laba qaybood ayaan barnaa ardayda dhigato tiradoodu tahay 30 arday qolo barata qaboojinta ay tahay IC-yada gawaadhida mataqaana IC-yada xafiisyada lagu xiray waaweyn iyo ka shaqeynta talaagadaha qaybta labaadna waxay bartaan laxamada data wax kasta oo wildka data albaabadii daaqadihii wax kasta oo laxamid lagu baahan waxaan uga mahadnaqayaa Ufenco maxadka tababarada shaqaalaha ee Ufenco aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo hawsha ka hawlgashay iyo hay'adaha ka caawiyay Ufenco aad baan ugu mahadnaqaynaa wuxuu noo soo kordhiyay waxyaabo aad u fara badan gobolka Saaxil gaar ahaan gobolka Saaxil soo kordhiyay iyadoo lagu barto farsamooyinka electriga qaboojiyeyaasha kalluumaysiga iyo dawarlaha dad fara badan oo xirfado aan lagu shaqaysta aan lahayn ayaa maanta xirfado ay ku shaqo tageen helay dhanawada waxyaabaha loo baahan yahay in lagu soo kordhiyo wadanka marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in loo soo kordhiyo mashaariicda si ay dadka ay wax u qabsadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada gobolka Saaxil waxaan aad iyo aad uga codsanayaa ee soo abray gareeyaan farsamada gacanta
markaad dhinac ka eegto muddo 8 bilood ah kadib markay ardaydani xirfadaha dhammaystaan muddo intii leeg bay ku qaadataa inay fursado shaqo helaan xirfadaha mas'uuliyadda waxa weeyaan dadkii marka suuqii la eego dee xirfadii ugu habboonayd markaan market assessment soo sameynay needskii marketkii maxaa laga dhimaa gareen looga baahan yahay aan eegno fursadihii yaalay waxaan soo sameynay assessmentka waxaan soo saarnay xirfadaha imika loo baahan yahay muddada dhow xirfadaha loo baahan yahay xirfadaha marka aan keeno dabeetana dadkii aan waxaysiiniyo dadkii saxda ahaa waxaan aan screen ku sameynay dadkii dee saxda ay doonayay ee waliba u baahnaa ayaanu dooranaa waayo markaad eegto inta qofku uu gacantu ka qabanayo maalgelin yarna way ku baxaysaa wax badanna uu soo saaraya halka qofka maaragtay iskuul intuu galo 16 sanadood 12 sanadood iskuul soo dhigto 4 sano jaamacada 16 sanadood ay ka baxayso in la maalgeliyo isla markaana 2 sano ama 3 sano uu shaqo raadinayo 20 sano ku qaadanayso qofku inuu shaqo helo qofka 16 sano wax dhiganaya 16 sanadood wadanku ma maalgelinayo dad isaga la hagaajinay laakiin qofkani 8 bilood gudahood ayuu wadankiisa ka qayb qaadanaya inuu wax soo saarka wadankiisa koriyo qoyskiisa ku filnaado isaguna isku filnaado cabdirasaaq waa mid ka mid ah ardaydii maxadka tababarada xirfadaha iyo feenko ka baratay xirfada qaboojinta muddo yaroo kooban kadib cabdirasaaq waa mid ka mid ah xirfadlayaasha ugu dakhliga badan magaalada Berbera waxaana ku booqday goob markaa ka shaqeynayay waxaan fursad ku ogaaday anigoo danaynaya ayaan wax ku arkay advertisement ay xayeysiinayaan in arday loo baahan yahay dhigata kuulinka kadib wax la naadiyay taligii imtixaanka la galay imtixaankii markaan galay waan ku guuleysanay waxaan ku soo baxnay liisaska ugu sareeya saas ayaan ku bilownay shaqadii oo ahayd waxaan u helanaa ama ahayd inaan marqulka ka jaba keeno ama aan ku shaqeeyo waxaan bartay xirfadda kuulinka ama qaboojinta eesiyada 8 bilood ayaan ka dhiganayay waan ku dhex jiray sidii aan ugu shaqeyn lahaa anigu meesha gudaheeda jooga xirfadan oo ah xirfad magaalada ku yar markaan xirfadan la shaqo ayaabay ka bedeshay wax kamid ah xagga ikamka ama dhaqaalaha waxaan u shaqeeyaa imka si joogta ah xabada eesiga wax ku xidhnaa tusaale ahaan $80 ama $70 mar waxa dhacday inaan 10 mil xidhnaa ama 30 mil meesha qoyskay wax ka bedeshay wax badan bay ka bedeshay carruurtaydu anigu dhalay ay dhigato meelaha sarsare ragga taajiriinta ay carruurtooda dhigato biilkooda nusaacahooda gaadhigooda waxba ka xirfadan aan imka bartay cusub ee 8 bilood dhiganayay ayaan ku kafargareeyaa sanadii 1991 ayay ahayd markii magaalada Berbera laga hirgeliyay xawaalo workshop oo lagu hagaajiyo laguna dayactiro qalabka qaboojiyayaasha Sheekh Cabdi Xirso oo in ka badan 17 sanadood goobtan ka shaqeynayay waqtigan waa maamulaha xawaalo workshop waxaana si kooban uga warbixinayaa waxyaabaha la taaban karo mashruucan horumarinta cilmiga laba sida tooska ay uga faa'iideen waqti uu goobtan ka shaqeynayo Xasan Yuusuf oo kamid ahaa ardaydii mashruucan ka faa'iideysanaysay iyo feenka wax badan bay soo kordhisay aqoontan farsamada talaagadaha markii hore dadka ku yarayd horta xirfadan runtii waqtigii hore ma ay badnayn xirfadan hadii jeer dadka u baahan in aan xirfadan nagala shaqeeyaan anaga ay tababaran jiray laakiin intii ay timi iyo feenko wax badan bay naga caawisay dadka xirfadaha iyada ayaa soo tababarta dabeedna markay noo yimaadaan anaguna iyagana waanu sii tababaraa aqoontoodina waanu kordhinaa iyagana waanu ka faa'iideysanaa wax bay nala qabtaa dadkii suuqa joogay waayay meelo kale inay ka shaqeeyaan waxaan siinay fursada wax barashada xirfadiya 8 bilood qofkii ku qaadanaysa inuu xirfadii barto 8 bilood intuu ku guda jirana waxa awood u leeyahay qofku isagoo baranaya inuu shaqaysto maadaama theory ama hadalka badan qoraal aan qofku xoog wuxuu u fahmeen gacanta iyo sidoo wuxuu u qaban lahaa ayaan ugu badan ahmiyadda la siiyo time-ka ugu badan waxa ku lumiya practical-ka geerishkan joogan marka hore wax looga maalmeel lagama heli jirin marka waxaan maqlay waxa la qabanaya imtixaan iyo waxa la qabanaya iyo feenkan soo iimi fursadaas chance-kaas ka faa'iideystay iyo feenkan ka galay maxaad ilhaamadii marka 4 bilood baan dhiganayo 4 bilood watan in ugu shaqo geeyeen alxamdulillah markaan ku shaqeysana marka roof mid baan aragno waxaan aragay marka hore kaliya taan aragay saad ku heshaan nolol maalmeedkii
imikana nin kumbaleed baan ahay aniga faamilkayga dhan anaa wadahaya alxamdulilah horta waxaan u mahadnaqayaa hay-adda iyo fanka oo maanta heerkaana soo gaarsiisay isku soo wada duuduuba waayadan dambe waxaa suuqa shaqada kusoo badanaya xirfadlayaal ajaaniba oo tartan xoogan ugu jira siday suuqa shaqada ugala wareegi lahaayeen xirfadlayaashii hore suuqa ugu jiray iyadoo dhanka kalena ardayda mashruucan ka faa'iidaysta ay awood u leeyihiin sida ay ula tartami lahaayeen xirfadlayaasha ajaanibka mustaadada hore suuqna ka dalban jiray waxay wastaado badanaa gacanta loo sii dayn ama aan shaqada baleenkeeda iyo qiyaasteeda fahmin laakiin UFECA waxay kaga fiican tahay wastaad inay tababartay hadday nijaarin noqotay dad wastaad noqoto iyo hadday barlaam noqotoba waa dad lagu tabcay oo nacamti sahlaya shaqadii markii hore inanka tilmaamaysa laakiin tilmaantoodii nidaamkooda u dhammaystirantay shaqada waa tusaysan laakiin isaga bilow ilaa dhamaad sidoo wadanaya waana laga garaystay wadaadkii dibadda laga soo qaadayay ama aanu inta badan warmaynay marka rag badan oo lagu tabcay ayaa ka soo baxay waqtigooda si fiican ugu xisaabtamayaan hawlaha oo xilliga loo diro wixii shaqadooda oo kaga tagayso sidooda ay u dhameystirayaan oo dul joogs iyo arin joogs iyagooda ay sidooda isu maamulayaan waxoodii iyagoo saft ama wax saayid ay ku dareen ama wax qurux badan oo xitaa aanan markii hore qabin ayuu ku soo kordhiyaan si fiican wixii aan ku heshiino sidooda ay uga soo baxaan contractor wixii nidaama ونما ندامسن oo si qurux badan wixii ay ku ballataan uga soo baxaya inaga waxa weeyaan dadkeenu qofku de marka uu shaqeynayo xirfadiisa oo garanay hadana marka uu shaqeynayo ayaa waxyaabo dhaqanka la xiriyo inta qofku de waqtigii shaqada la soo galay waqtigii laga baxay iyo inta shaqadu socoto in iyagu isku jeesjeestaan waxyaabaha soo kan dhan waxa weeyaan waxyaabaha dadku ay gelinta laga siiyay markii xirfadda la siinayo inuu qofku inta saacadood lagu leeshiyay inuu shaqeeyo isla markaana ballanti ilaaliyo in adeegiina sidii loogu talagalay uu qabto si uu la tartami karo dadka ajaanibka oo iyagu shaqeynaya saacadii loogu talagalay waqtigina muxuu haye iskaga luminay ardayda UFECA soo saarta waxyaalaha kaga duwan kuwa hore waxa kamid ah waa arday akhlaaq leh oo dhaqan wanaagsan oo de akhlaaqdooda iyo tababarkooda si fiican soo qaatay oo aamina oo shaqadiina wax ka fahansan runtii dadka xirfadaha lahaa ee suuqa hore ugu jiray majority ma ahan dad academically u soo bartay aqoonta laakiin dad experience ku bartay ama qof farsamada hore u yaqaanay oo la shaqay jiray kadaba runtii de bartay oo waxa la yiraahdaa eegmo ku bartay laakiin schooler aan haynoon de aan si matqana scientific wixii aan u baran runtii de kala saameyn bay noqonayaan dadkan soo tababaray waa dad loo tababaray qofka uu wixii intuu bartay tababar practicalkiina uu qaatay dabadeedna sidii standardka uu qabanayo waxa uu haysanay xawii shahaadadaasna waxa tilmaamaysaa qofkaas inuu waxa si fiican u bartay runtii xirfadu waa shay qaali ah waa shay qof waliba u baahan yahay mas'uula waana sida chance uga faa'iideysato hadda chance ka lumiso uu ka lumaya laakiin hadda ka faa'iideysato oo si hagar la'aan dadka ugu shaqeyso oo soo dhaweyso aanad ku xisaabtamin koska ka soo galaya hadda ku xisaabtato baayac inta ka lumaysa ka badan inta ka helayso marka waxaan nahay dad ku filan inay ku fargarayaan wax badan maanta inaad jaamacadda markaad ka soo baxdo inaad shaqo helaysid runtii ma hubtid laakiin dad farsamo gacan taqaan inaad shaqo helayso runtii waliba yoomiya oo baahidaada ay runtii ku kafayso waa shakalaan weyn